nin la oran jiray marka abrahat alashram abrahat alxabashiy wuxuu amiir ka ahaa boqor ka ahaa abraha nin madow ayuu ahaa sanca yemen ayuu ka ahaa boqor waxaana boqor ka dhigay najaashi boqorkaa najaashi ardu xabasha meliga ka ahaa ayaa wuxuu ka dhigay boqor sanca ayuu wakiil uga ahaa sanca ayuu joogay ninkan wuxuu ahaa nasaaru ahaa ahlu kitaab buu ahaa sidii boqorka najaashiba uu u ahaa ahlu kitaab nasraanis uu u ahaa nasaaro weeyaan wuxuu had iyo jeer maqli jiray abraha in badan uu maqli jiray kacbada wuu la yaabi jiray dhagaxaa madow dhismahaa madow oo dadkii oo dhan u xajinayaan oo ay aadayaan wuxuu maqli jiray baytullahi alxaraam iyadoo la leeyahay oo dadku u qulqulaaya wuxuu la yaabi jiray carabta oo u xajinaya gurigan waxaasoo dhan uu ka fikeri jiray cudur ayay ku noqdeen qalbigiisii baa marka waxaa buuxiyey xiqdi iyo xasad wuxuu ka caraysan yahay oo uu la xumaanayaa maadaama uu yahay nasaaro uu yahay maadaama masiixi uu yahay maadaama uu gaal yahay wuxuu ka xun yahay dadka muslimiinta ah wuxuu ka xun yahay dadka carabta ah ee u xajinaya gurigaa wuxuu ka xun yahay gurigaa barakaysan wuxuu ka xun yahay beytkaa barakaysan wuxuu ka xun yahay halkaa gurigaa dadkii oo dhan mideeyey ayuu ka xun yahay wuxuu ka xun yahay magaaladii uu ka talinayey iyo waddankii uu ka talinayey oo amar la-aan isagoona laga amar qaadanin dadku ay sanad walbaba hal wakti ay ka qulqulayaan oo ay aadayaan gurigaa carabta ay aadayaan caadada nasaaradana sidaa weeyaan caadada oo ahlu kitaabka ana waa sidaa xiqdi ayaa buuxiyey laabtooda laabtiisii waxaa buuxiyey xasad iyo xiqdi iyo xumaan iyo ciil iyo qurun ayaa buuxiyey waana waxa had iyo jeer ay inoo qabaan weeyaan nin masiixi ah marnaba inuu jeclaado lagama yaabo nin muslim ah inuu jeclaado nin carab ah ma laga yaabo marnaba si walba ha kugu qoslo in badanoo walaalaheenana waxay leeyihiin muslimiinta waxaa nooga fiican gaalada maxaa wacay gaalada way noo qoslaan si fiican bay noo salaamaan maaragtaa way noo dhoola caddeeyaan run bay noo sheegaan raashin bayna siiyaan xaqaynay ilaaliyaan intaas adduunka ee horudhaca ee maaragtaa dhaldhalaalka beenbeenta ah ayay fiirinayaan laakiin maxaa ku aasan uurka maxaa ugu jira ya uurka waxaa uga buuxa oo uga jira in uu jawhartaadii uu u dhaco oo uu madoobeeyo uu burburiyo jawharta adduunka aan ku haysanaa waa maxay diinta iyo caqiidada weeyaan meeshuu u socdo oo uu qosolkan iyo dhagdhagtan iyo waxsiismadan iyo khayraadkan iyo muusoodkan uu ugu socdo waa maxay uurka weeyaan laakiin adigu garan maysid meeshii loo socdaa garan maysid ma garanaysid ilaahay baa nooga xikaayoonaya yaa ka qiimi badan yaa ka run sheeg badan kitaabka ilaahay ya kitaabka ilaahay cid ka run sheeg badan male ilaahay wuxuu leeyahay wadda kathiiru min ahli lkitaab wadda kathiiru min ahli lkitaabi law yarudduunakum min bacdi iimaanikum kufaara in badan in yar ma ah waa in badan oo ahlu kitaabka ah waa yuhuudda iyo nasaarada weeye waa dadka intiida badan aad ku dhex nooshihiin iminka intooda badan waxay jecel yihiin in ay idin celiyaan gaalnimo inay idin celiyaan kadib markii aad iimaanka la imaadeen iimaankiina dabadii rumayntiinaan dabadii aada rumayseen alle rasuulkiisa iyo islaamka aada rumayseen dabadeed inay idin celiyaan gaalnimo ayay intooda badan jecel yihiin sidaa maxay u yeelayaan kufaar xasadan min cindi anfusihim waa xasad iyo xiqdi weeyaan iyo hil ku jira laabtooda giddigood uurkaa wada madow hadday ilkahooda cad yihiin gacantoodu furan tahay ay idin qoslaayaan uurkooda madow inay idin celiyaan bay doonayaan in badanna way ku guulaysteen in badanna waxa weeyaan iminkay kusii socdaan ay ilmihiinay xaggeed ku ogtihiin
xaggay joogaan ilmihiini dhashiinii aaway idinkuse ma heshaan wakti aad ku cibaadaysataan aye waxaase ay idin siiyaan wax barakale ma yihiin waa maya intiina badanna waxaanu aragnaa inaad usoo kala cararaysaan bilaadii carabta idinkoo ilmihiini la soo cararaaya aye dad fiican hadday yihiin ilmaha maxaad ugala soo cararaysaan lafihiina maxaad ugu soo cararaysaan waa maxay tiihan iyo xayiraankan iyo sii orodkan soo orodkan aad ku jirtaan waa maxay hadday dad fiican yihiin maad dhex joogtaan maxaa idin wareerinaya taas waxayna tusaysaa inaanay dadka aad ku dhex nooshihiin ee nasaarada ah inayan ahayn dad wanaagsan oo ilaahay waxa uu ka sheegayaa ay run tahay ayaanu halkaa ka garanaynaa xiqdi ayaa buuxiyey boqorkii maaragta ahaa abraha qalbigiisii markiiba wuxuu doonay dadkaas siduu maaragtaa uu uga soo leexin lahaa maka wuxuu muddo siduu ufikirayey ayaa markii dambe wuxuu ku guulaystay oo uu helay shaydaankiisii tusiyey in uu sanco ka dhiso guri sanco ayuu wuxuu ka sameeyey guri isagoo kale caalamka aanu markaa xilliga iyada ah aanu ku oolin guri qurux badan ayuu dhisay oo uu dahab iyo maaragta uu ku dhisay weliba gurigii iyo carshigii balqiisa iyo mamlakadii balqiisa saba ayaa intuu soo qaaday haraageedii iyo wixii ka haray ayuu maaragta qayb kamida uu ku qurxiyey dadkii reer sanca ee reer yamana si xun ayuu ugu shaqeeyey shaqada kii ka daahana gacantuu goyn jiray boqor jabbaara ayuu ahaa gurigii baa la dhisay waa la dhameeyey markiiba wuxuu waraaq u qoray boqorkii xabasha banajaashi ayuu u qoray wuxuu yidhi boqor yahow waxaan ku dhisay guri isagoo kale caalamka aanan ku oolin boqor kalena aanan loo dhisin boqor adiga kaa horreeyey guri uusan helin oo aan loo dhisin ayaan kuu dhisay sidaan kuu jeclahay qalbigayguse degi mahayo ilaa carabtan adduunkao dhan intay ka tagta aadaysa maka u xajinayso guriga ilaa aan ka soo leexiyo oo aan usoo leexiyo gurigan aan dhisay oo ay halkan usoo xajiyaan qalbigaygu degi mahayo ee ii ogolow boqorkii wuu ogolaaday markiiba ciidamo aad u fara badan oo maroodiye ah ayaa la kaxeeyey waxaa hogaamiye u ah gurigan marka hore kan kale ee maka ku yaala kacbada la yidhahdaa waa kacba laakiin midkan waxaa la yidhahdaa qulays guriga quruxda badan ee abraha u dhisay waxaa la yidhahdaa qulays in qulays loo soo xajiyo oo kacbada laga soo xajiyo doonaya in xagga laga soo wareego kacbada inta laga soo wareego in qulays qoorta ku go'day in qulays loo soo xajiyo doonaya ay marka maroodigiisiina waxaa la dhihi jiray maxamuud buu u bixiyey maxamuud ayuu isaga fuulay maroodiyadii kalena waa ciidan aan taag loo haynin caalamkan hore aanan loogu arag ayaa wuxuu u kaxeeyey dhankaa iyo maaragtaa maka waddada muusan aqoonin adigu maaragtaa dad buu kaxaystay oo ilaa iyo geeyey maka laakiin qabaa'ilkii yaryaraa ee deganaa dhexdan markay ka war heleen boqorkan inuu kacbada rabo inuu soo dudumiyo runtii in badan baa ishortaagtay oo doontay in ay ka dhiciso oo la dagaalamay laakiin wixii oo dhan cagta ayuu mariyey waxaa wacay ciidankiisa ma aanu ahayn ciidan loo babac dhigi kara ma aanu ahayn halkii markuu gaaray ayaa dadkii meesha deganaa ay markay ka war heleen kacbada deganaa iyo maka agagaarkeeda giddigood way ka wada carareen buurihii bay fuuleen isagana wuxuu sameeyey xoolihii yaalay meesha ayuu soo wada kaxeeyey geelii wixii oo dhan baa maaragtaa loo keenay cabdulmutalib ayaa u yimid oo raadinaya geeliisii wuxuu yidhi kumaa tahay waxaan ahay cabdulmutalib quraysh ayaan ahay hogaamiyaheeda beytkaa ninkii maamulayay ayaan ahay wuxuu yidhi maxaad rabtaa waxaan rabaa inaan gurigan dumiyo beytkan inaan dumiyaan doonayaaye cabdulmutalib ma ii ogolaanaysaa abraha dhahaya ma ii ogolaanaysaa waxaan rabaa dadkiina oo idil giddigin inaad qulays
gurigaa quruxda badan ee sanca aan ka dhisay inaad usoo xajisaan baan doonayaa oo anna kan aan dudumiyo. hay markaasaa wuxuu yidhi war makuu sheegaa, anigu waxaan kuugu imid inaan kaala xaaltamo ma aha duduminta gurigan, waxaan doonayaa geelaydii 200 neef oo geelu ka haystaa, geelaygii baan kuugu imid abrahow, isii ii soo celi geelayga. wuu yaabay, war waa maxay sayidkan dhan ee kacbada mas-uulka ka ah oo aan haddana gurigiisii difaacanaynin, waa maxay aan qabiilkiisii difaacanayn. wuxuu yidhi anigu geelaan leeyahay, isii geelayga, amaa gurigaa wuxuu leeyahay rabbi difaaca ayuu leeyahay. abraha isagoo jeesjeesaaya ayaa wuxuu yidhi walle maanta rabbi baanan iga celinin buu yidhi arrinkaa u socdo. ya qof i hor istaagi kara male, allah walaa ilaah walaa rabbi walaa mawle wax i hor istaagi karaa male, boqor i hor istaagi karaa ma laha. maanta arrinka aan doonayo waa inaan dudumiyaa. waxa carada kusii kiciyeyna waxa weeyaan waxaan yani aan kasoo tegay gurigaa Qulays la yidhaahda markuu dhisay dabadeed ayaa carabtii markay ka war heleen in sababta u dhisay ay tahay in uu xajka soo wareejiyo oo uu kaa dudumiyo, ayaa mid kamid a qiiro intay qabatay ayaa intuu gurigii habeenimo intuu galay ayuu ku saxarooday, xaajadiisii buu ku gutay, dabadeed xaarkiibu intuu qaado derbigii marmariyey. subxii markii la arkay oo uu aad u xanaaqay abraha ayaa wuxuu yidhi yaa ku sameeyey Qulays sidan, Qulays yaa sidan ku sameeyey. waxaa la yidhi guriga aad leedahay waan duduminayaa ee kacbada ah, dadka halkaa degan mid kamid ahaa waxaan ku sameeyey. markaasuu aad u sii xanaaqay. taasna waxay ahayd sababihii abraha keenay in uu dudumiyo kacbada. geelii buu u celiyey abraha Cabdulmuطalib. markiiba Cabdulmuطalib wuu uga dhex baxay carabtii intii meesha joogtaa, wuxuu yidhi meesha isaga taga, meeshan balaayaa ka taagane ka carara, qof walba reerkiisa ha kaxeeyo, meeshuu ku badbaadi karaa ha geeyo, buuraha ha la fuulo. wixii haray halkiyaa la wada tegay. markaasaa wuxuu damcay inuu ku dhaqaajiyo abraha oo uu galo kacbada si uu u burburiyo. maxmuud ayaa dhaqaaqi waayey. maxmuud waa magacii uu bixiyey maroodigiisa weeyaan, wuu dhaqaaqi waayey. haddii dhanka yeman loo jeediyo waa kuwuu durdurinaya, wuu ordaya. haddii loo jeediyo kacbada waxa weeyaan lugihiisi ma dhaqaajin karo, dhulkay ku dhagaayaan. markiiba waxaa ilaahay soo diray ciidan aan horey loo arag, ciidan ka yimid jahannam, shimbiro yaryar ayaa loo soo diray. alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil alam yajcal kaydahum fi tadliil وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. shimbiro yaryar oo kooxaa loo soo diray oo sida sijiil dhagax yaryar ayay sidaan, saddex dhagax mid walba, midna afkay ku sidaa, labada kalena lugaha. magacyaa ku qoran qofka loo soo diray oo maaragtaa ay ku dhufanaysa magaciisa ku qoran. markaasaa waxaa cirkii daday, samadii daday, qoraxdii qariyey shimbirihii. markaasaa qof walbaaba intay dul imaado ayay madaxa ka saartaa. markaasay cadcad u kala go-een. maroodigii sidoo kale. giddigood ilaahay baa baabi'iyey. ma ilaahay baa lala dagaalami karaa? wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu. yaa yaqaana ciidamada ilaahay. war ma ilaahay baan la dagaalami karnaa? ya beydkiisa iyo culimadiisa iyo rusushiisa iyo diintiisa islaamkiisa ciddii doonta inay la dagaalanto sidaa abraha loo galay un baa loo galayaa. imaa adduunka in loogu galo, imaa aakhira in loogu galo. ya subxaana allah. bal fiiri, fajacalahum kacasfin ma'kuul. waxaa laga dhigay balkaa la baabi'iyey oo la cunay, beer baxday oo bisil, xoolo intaad geel ku daysay iyo maroodiyaal intaad ku daysay ay ma aragtaa wada burburiyeen oo ay wada cuneen oo ay dhulka dhigeen. sidaasay ilaa iyo Sanca, Maka ilaa iyo Sanca sidaasay u daadsanaayeen meydkooda iyagoo qurun badan oo ur badan. ya halkaasaa waxa waaye dhurwaagaa meesha ma aragtaa loo waray. sidaasaa marka u dambaynaysa qof walbaasaa u dambaynaysa.